maadaama rag iyo dumar baa tihiin dadkii qur-aanka baranayay ilaahay subxaanaه wa tacaala kitaabkiisii waxaynu isxasuusin doonaa uun kitaabkan iyo qofka muslimkaa waxaa looga baahan yahay ugu horeyn qur-aanku waa ilaahay kalaamkiisii subxaanaه wa tacaala ilaaha kownkan abuuray addunya aakhiraba isagu leh wax walba gacantiisa ku jiraan wax walba og ayuu hadalkiisii yahay idan waa acdam wasiiqa fi lxayaa waa wasiiqada ugu culus ee ugu ballaadhan ee kownkan dhex taalla mar hadduu ilaahay hadalkiisii yahay subxaanahu wa tacaala wuxuu mudan yahay in la weyneeyo weyneynta uu ilaahay kitaabkiisu xaq u leeyahay agteenna inuu ku weynaado qalbigeenna inuu ku weynaado barashadiisu wax weyn inay nala noqoto kitaabkan madmuunkiisu waa laba shay bay culimmadu sheegaan ka koowaad waa mucjisatu risaala ka labaadna waa manhaju xayaa kitaabkani wuxuu kulansadaa laba shay oo ka koowaad uu yahay risaaladii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam loo soo dhiibay waa mucjisadeedii waa wixii loogu talagalay inay dadku ilaahay ku rumeeyaan walow kaana min cindi gayri illaahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kaiira ilahi wuxuu leeyahay falaa yatadabbaruuna alqur'aan walow kaana min cindi gayri illah dadku miyaanay qur'aankan u fiirsanaynin tadabburku fi luga waxay dhahdaan min addubur buu ka yimi dhabarkii dambe macnaheeduna waxa weeyaan qofku muuqaalka soo eegayo qura inaanu arage shayga dhan walba inuu iska taago ilaa iyo gadaashiisa arki karo waxa ka dambeeya idan ilaahay wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala qur-aanka miyaanay aada u fiirsanaynin oo eegaynin haddii uu yahay oo qur-aanku ka iman lahay ilaahay kayrkii isbaraanbarin badan ayay ku dhex arki lahaayeen baa la leeyahy subxaanahu wa tacaala idan waa burhaanka caqiidadatan haddii la rabo aadanaha in loo sharxo ilaah iyo jiritaankiisa rabbi iyo cibaadadiisa aakhiro iyo bacfi iyo dambeynteeda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo risaaladiisa waxaan inaga qarsoone malaa'ig iyo jin iyo kuwa rumayntooda arkaanul iimaan iyo wixii la xidhiidhaba haddii la rabo in la sharxo uma baahno falsafo kale iyo wax kale waxa burhaan ugu filan aman yabda'u lkhalqa huma yuciidu waman yarzuqukum min alsamaa'i waalard a ilaahun maca allah qul haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin waxa daliil ugu filan oo caddayn ugu filan waa kitaabkan qur-aanku saynu wada ogsoonnahay ummad muslima iyo ummad gaalaaba waa lagula hadlayay gaaladu may rumaysanayn haddaasee loogula hadlaya qur-aan waxaa loogula hadlayaa adilada caqliga ee uu sido adilada maangalka ah idan qur-aanku isagaa xujo u ah diintatan isagaa mucjiso u ah isagaa ah waxa lagu rumaynaya nebi maxamed inuu nebiya calayhi salaatu wasalaam isagaa ah waxa lagu rumaynaya ilaahay inuu keli yahay oo xaq lagu caabudo isagaa ah waxa lagu rumaynaya aakhiro iyo bacdiga iyo janno iyo naar iyo waxa dambeeyo o dhan si awgeed waxay leenahay qur-aankani waa mucjisatu risaala risaaladii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam loo soo dhiibay waa mucjisadeedii waa wixii loogu talagalay in dadku raaco walidaalika baa ilaahay wuxuu leeyahy wajaahidhum bihi jihaadan kabiira qur-aankan kula jihaatan baa ilaahay leeyahy dadka
shubha kasta iyo wax kastoo ay keenaan qur-aankan ku jihaatan baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala. ka labaad waxaan leenahay waa manhaju xayaa. madmuunkiisu ka koowaad hadduu yahay inuu caddayn u yahay risaalada, ka labaadna waxa weeyaan bay leenahay muxtawaha u sidaa waa inuu yahay manhaju xayaa, nolol wadadeed jidkan loo noolaada ayuu qur-aanku tilmaamaya. walidaalika qur-aanku waa kitaab caqiide ka warrama, waa kitaab shareeco ka warrama, waa kitaab akhlaaq ka warrama, waa kitaab siyaasiya iqtisaad iyo culuum ijtimaaciya ka warrama, waa kitaab ka warrama fi lanfusi walaafaaq, ishaaraat kowniya. bale waxaa laga yaabaa aayaadka ishaaraadka kowniga ka warramaya inay ka tiro badan yihiin aayaadka axkaamta fiqigaa ka warramaya. aayaat alaxkaam culamaa ilfiqi waxay yidhahdaan waa xawaalaya 500. aayaadkan kalena waxay yidhahdaan waa akthar min 1000 aaya. walidaalik qur-aanku waa mawsuuca cilmiya saxiixa, waa mawsuuca cilmiya oo aadanay wixii uu u baahnaa, waxaanad u baahnayn waa meel kale, wixii bini aadam uu u baahnaa ee noloshan ugu baahnaayoo dhan xambaarsan, hadday tahay caqiido iyo wax la rumeeyo iyo tasawur laga aamino dunida iyo aragti laga qaato, hadday tahay sharci lagu dhaqmo iyo qaanuun, hadday tahay akhlaaqiyaad iyo values bini aadamku uu rumeeyo oo dhexdooda ku dhaqmo, hadday tahay qadiyo siyaasiya ama dhaqaale ama ijtimaaca, hadday tahay taariikhdii hore ee dunida tan iyo aadanihii soo maray, kuwoodii samaa iyo kuwoodii xumaaba ilaahay qur-aanku kaga warramaya, hadday tahay qeybka dambeeya ee aakhire iyo bacdigeeda iyo xabaasha iyo wixii xaggaa xiga ee dambeeya, dhammaantood ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanku kaga warramaya. sidaa awgeed kitaabka qur-aanka ahi waa akbar mawsuuca cilmiya saxiixa. ilaahayna wuxuu ina leeyahy walaa yunabi'uka mithlu khabiir. sida rabbi idinku warramay cid idinku warramaysaa ma jirta baa ilaahay leeyahy. qul anzalahu aladii yaclamu sira, waxaa soo dejiyey baa ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacaala allaha og asira fi الsamaawaati wاlard, ilaha cir iyo dhulba waxa ku qarsoon og. aadanuhu waxbuu baadhbaadhaa, markuu muddo wax walaaqayo ayuu wuxuu ogaadaa hal shay oo yar oo wixii alla abuuray say u shaqaynayaan, markaasaa la yidhahdaa waa khabiir hebelo inventionka caynkaasiya ayuu ogaaday. ilaahayna wuxuuna leeyahay allaha cir iyo dhul iyo waxan kownka jiraba og ayaa kitaabka qur-aan idiin soo dejiyey. idan muxtawaaga ku jira qur-aanku waa inuu yahay yahdi lilatii hiya aqwa. ina hada alqur'aana yahdi lilatii hiya aqwa, waa ku kugu hanuuninaya dhabaha quman, shayga toosnaanta badan ee qumanaanta badan ee fiican ee nolosha adduunna aad ku liibaanayso, nolosha aakhirana aad ku liibaanayso. walidaalika baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa inuu yahay shifaaءun lima fi الsuduuri walanfus. aadanaha waxa xanuun ku dhaca, caqli ha kaga dhaco, naf ha kaga dhaco, jir ha kaga dhaco, waxa xanuun ku dhaca inuu shifaa u yihi. yaa ayuha الnaasu qad jaaءatkum mawcidaة min rabbikum wa shifaaءun lima fi الsuduur. yaa ayuha الnaas baa ilahay yihi war dadow, dadow baa ilaahay leeyahy, dadoo dhan isku dar. waxaa xagga rabbi idinka yimi qad jaaءatkum mawcidaة min rabbikum wa shifaaءun lima fi الsuduur. waxa laabta dega ee xanuuna, ee shakiya, ee warwara, ee hamiya, ee hamiya, ee nolosha uu qofku satisfied ku noqon waayaa, waxaa lagaga bogsadaa baa ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacaala kitaabkan qur-aanka. haddiiba uu caynkaa yahay kitaabka qur-aanka, diintanna mucjisadeedii uu yahay, noloshanna manhaju xayaadkeedii uu yahay, muxuu inaga mudan yahay markaa barashadiisu iyo weynayntiisu iyo qadarintiisu iyo fahamkiisu?
dadku casrigan dambe waxay aada ugu dadaalaan qiraa'aadkiisa iyo akhriskiisa laakiin waxaa ka muhiimsan fahamkiisa iyo garashadiisa in la akhriyaa waa khayr iyo fadiila iyo ajar tiro badan in la akhriyaa waa baraka kitaab mubaarak baa ilaahay ku sheegay inuu yihi in la akhriyaa ajar badan baa laga helaa laakiin waxa ka muhiimsan oo awlawiyada leh in la garto waxa ku jira ee aqoona ayaa awlawiyada koowaad iyo mudnaanta dee haddaanad akhri karayna garan maysid oo akhrintu iyo qiraa'adkiisi iyo kani waxay u yihiin waddo fahamkiisii iyo garashadiisii iyo barashadiisii dhabta ahayd bay waddo u yihiin laakiin ma aha halkii ugu dambeysay ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa waa kitaab barakaysan aanu soo dejinnay liyadabbaruu aayaati in lagu tadabburo iyo waliyatadakkar ulul albaab waxaa loo soo dejiyey waa kaa in si fiican loo fahmo iyo inay ku wax qaataan dadka caqliga u saaxiibka leh ciddii qur-aankan garata markaa ee ku dhaqantee fahamta ee ku camal farsha iyadoo ilaahay qur-aan ku tilmaamayo fahamkiisa iyo barashadiisu iyo garashadiisuna inay fududay walaqad yasarna alqur'aana lidikr fahal min mudakir ilaahay wuxuu leeyay waan fudaydiyey waxaa loo fudaydiyey in lagu waantoobo in wax lagu qaato ee ma jiraabaa ilaahay leeyahy mid ku waantoobaya haddaynu garanno markaa oo fahamno ku dhaqanno wuxuu inoo noqonayaa sharaf iyo magac iyo maamuus adduunya aakhiraba ay saxaabadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam intaanay qur-aanka garannin aadanaha dunida ku noole kuwa u liitay ka mid ahaayeen jaziira alcarabiya waxay idhaahdaan kow dhul fawda-a bay ahayd oo aan nidaam kala dambayna lahayn dhul bay ahayd dhaqaalo daran oo inteeda nimcada ah ama bugoobiyada leh ama beeraha leh persian iyo romanisku ay haystaan iyagana looga tegay inta saxaare ee lama dege aan baad iyo ceel toona lahayn ayay deganaayeen dad fawdawiyiina bay ahaayeen dad dil u nool bay ahaayeen dad ceelka ninku ku ilaashado seeftiisa bay ahayd ninba ninkuu ku xoog badan yahayna uu cuno dad bay ahaayeen baktiga cuna dad bay ahaayeen maxay dhagaxa caabuda iyo dhoobo ay samaysteen dad bay ahaayeen aadanaha maqaayista wax ku qiimeeyo oo dhan inta ugu badan le meel hooso xadiida ka jooga haddana markay qur-aankan fahmeen ee ay garteen ee barteen waxay noqdeen acazu umma fi dunya kuntum khayra umma ukhrijat linnaas ilaahay ku tilmaamayo dadkii ugu casiisnaa adduunkan ugu sharaf badnaa ugu magac badnaa ugu taariikh roon labadii dowladood ee dunida ugu waaweynaa labadaba ka takhallusay bale waqti qiyaasiya waqti aada u kooban kaga takhallusay bale dowlado iyagu 700 sannadood in ku dhow dagaalamayo oo iskhaarajin kari waayey qaar ka mid a 15 sannadood bay kaga takhalluseen dowlado persia iyo romanis waxay dhahdaan xawaali 700 sano bay istilayeen oo iskhaarajin kari waayeen persia oo dhanna 15 sano في السنة الخامسة عشرة من الهجرة لك كلام وطلابه وكتخلصه حقيقة كان حوقا إيه ولدا إيه عزدا إيه ضد مضطا حقيقة كان قرآن كان فهم كيس إلهي كتاب كيسي قرتين أو فهمين دابا ترى وحي نقدين محي ضدك سقادة الدنيا إلهي وحين لي
لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون بين إليه وروح ندي سود جني كتاب وكتشره شرفتي نية مدنانتي نية ددمدي نية كتشرته ورنيدا ما اللهين بين إليه عقله بحبو جره ضد رب السماوات ولي أنا إذن هجية ونولش لي الدنيا أنا بورش الله ونولا أنا إذن تصيّا هذا الرعدان ولي أنا إذن قعن قبنية وتيدا صحدا إذن تلمامية إذن بركينية هذا لما الكلام مريّا ثم الله ونما يعقل قابن معها سأوجد بإلهي وحلي أفلا تعقلون قراد ميدان لهي ميدان قراد محبوي إذن كغبطي وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون والشرف يا مقعي ماموس بيني هي بإلهي ليدك نبي محمد واديك يا قوم كاغبا يا عندي الرميسين راعدبا آخرنا وليدي ويدين دونا بإلهي لي سبحانه وتعالى سيدا وقلنا قمتين أما هلكا اسكت تاكتين آخرنا وليدين ويدين دونا ولذلك أيها الأحبة نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام سيدو وينين يي قرآنك كان وحاو كتل مامي هداي داد مال السقوي مادان مدنان تينو لي هاي نكا قرآنك هيا نكا قرآنك هيا صحابة دي ما هين نكا وخرس بدن له ما عطفي عن ما هين وها نكا وفهم بدن له هو قرآن بدن نبنكو كقرآنك بدنا أي معناه إنه نقرس إنه كدين بدنا ما كعلم بدنا ما كان قوم بدنا سأوجد بنبي حط المامي عليه الصلاة والسلام يوم القوم أقرأهم لكتاب الله حديث مسلم دول هدي مال سقوي مادان هتوك يا ابو النبي يقول إنك قرآنك وجو أخرس في عن وجو ونكسن إنك قرآنك وجو ونكسن إن منك وجو فهم كبدن لا نوها أدونك داي حباش والنبي يقول يساس صالوك الله الرينية وغزوة أحد مركي صحابة بدن للايي داوعية بدن وسوق قاري صحابة ده أي أودي وين إن حبالو وذا قضان وحولي حبالها لبلبية صدح صدح وقليه لبلبية صدح صدح مركي اللحد كالله وشحشاحي أيوه النبي يقول وحا الرئيسيسان أقرأهم لكتاب الله كيو قرآن بدن حديث يا أبي داود كيو قرآن بدن هرقلي ابو النبي عليه الصلاة والسلام حباش إذا هدي اللي يري نلشنا هجان كذا وحا قبانيا ويقوه الرئيس الصلاة دي صلاة دا مسلمين تيهوري نكا أمد هجامية صلاة دانا هجامين شري نكا برسيدت كوادتك خليف بوا أيها صلاة دانا هجامين شري نبي مركو نولانا يسقى رسول وها نبينا وها إمامنا وها عليه الصلاة والسلام سلادنا هو قاميني خلفاء كده ميسي مركي خليفة هاي يجا سلادنا هو قاميني ساو قد با إن بدن أو يجا كميدا قار بدن أو كميدا سلاد لقد لي يجو أمل تكنا يا ما كوسي الصعدة عمر سوا كشرا لدلي على سوا كوسا الصعدة لدلي إذا وحيا هاي أئمة الأمة أيها في الصلاة أئمة أها منزلتنا وحي كهليين نقدان محي أقرأهم لكتاب الله آخر يا حباشة مركي وكعامة وحوها أقرأهم لكتاب الله كتاب كاسي مركا إن عرف كيس للسقوه ووضد كواد وبهي قفق السيدة وآخرين أيوه إنه السي عرف كيس وسقين وآخريه وطريقة كواد هلكو كبل أمه ألف وحملة ذو كحيقة وحكو حيقة اللباد وإنه فهمه إلهي باكولا هضي وحكوش يغيو وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له بلين دقيستا ووانصتوا آموسا حلو يرى آموسا أو دقيستا دكتيا أفكو موضى الشقيان بي لهذا هدي بحان نوي ولا بحان قفكو هدو دقا بيلو ولا عرب بيلا واف بيلا أنا ما هضله قفكو هدو هضله ينا وحما دقيستو
qofka la rabo inuu si fiican wax u dhagaystaa waa inuu isagoo aamusnaadaa wax maqlaa markaas laakiin hadal iyo dhagaysi iskuma wadi kartid waa adagtay dad gaar loo tarengareeyey ayaa samayn kara kuwan tarjama fawriya iyo waxaa sameeya waa dad la tarengareeyo la tababaray bal inuu waxna maqli karo ninkaa hadlaya wuxuu ku hadlayana maqli karo directorna uu u tarjumi karo laakiin bini aadamku markuu caadigayay dhegta iyo carabku ma wada shaqeeyaan idan aamusa baa la yidhi oo ilaahay kitaabkiisa dhegaysta si ay u fahamtaan haddii la fahmana waxa ka dambeeya waa maxay waa in lagu dhaqmo waa in ilaahay taladiisa iyo tusmadiisa la qaato waa in jidka ilaahay noo jeexay aynu garanno waa inaynu garanno acdam shay dhulkan kor yaalla inaad hayso innaga dad badani waxay u haystaan qur-aanka hadhow markaad barato maxaad qaban ma malcaamad baad adna furan doontaa intaasu ka fekeraa war qur-aanka haddaad barato aadanaha ninkii u aqoon badnaa baatay haddaad dab u barato aadana ninkii u aqoon badnaa baatay haddaad si akhriskiisu barato dee kollayba inaad meel fog gaadhi ma suurtagal day akhri suuntay dareeri suuntay laakiin hadday tahay inaad fahamto oo dhuuxdo ilaahay warkiisa aada garatid iyo waxa uu kuu sheegayo noloshan cidi kuma dhaanto markaa cidina kaama horeyso aakhirana cidi kaama horeyso kumana dhaanto aakhirana nin walba jannada intuu qur-aan akhriyi karo axaadiista waa idinkii wada maqli jiray ku tilmaamaya in la yidhaahdo akhri oo kor u soco aniga kelmadeydu waxay markaas ku kooban tahay qur-aankani waa labadaa shay waa diinta daliilkeedii iyo mucjisadeedii iyo nolosha manhajkeedii oo ah mawsuuca cilmiya inuu yahay fi kulli labwaab aada u baahan tahay inaad lagu hago hanuun inuu ku yahay inaynu markaa garanno oo markaynu garannona nolosheenoo dhan aynu ku dhaqno min waaga berigiisa ilaa gabalka dhaciisa min maantaad garaad yeelata ilaa maantaad godgelayso inta ka dhex leh inuu kuu noqdo nibraasulxayaa tooshkaad wax ku iibsanaysa wax walba aada isweydiisa ilaahay kitaabkiisa muxuu ka yidhi wax kasta su-aal kastoo aada qabto qur-aanka jawaabtiisa waad ka helaysaa inaad adigu garan weydo mooyaane inaad adigu garan weydo sida loo baadho ama loo fahmo ama wax looga dhiraandhiriyo waa suurtagal laakiin waxaa xaqiiqa in jawaabtiisu su-aal kasta oo noloshu ay u baahantay waxaanay noloshu u baahnayna iska tarafka ahay waa masalo kale wax kasta oo noloshu u baahan tahay jawaabtiisu way ku jirtaa laakiin waxaa loo baahan yahay ciddii dhirin kari lahayd ciddii kala soo bixi kari lahayd ciddii fahmi kari lahayd ilaahay warkiisa isagoo ilaahay inoogu tilmaamay inuu fudud yahayna ninka raba inuu ku waantooba inuu fudud yahay inuu ku waantoobo nabiguna calayhi salaatu wasalaam warkooban wuxuu inagu yidhi qur-aanku ama xujuu kugu noqon ama xujuu kuu noqon xujuu kugu noqono dee haddaad u dhabar jeediso xujuu kugu noqon xujuu kuu noqono dee haddaad fahamto jidkiisaad raaciyo aada ku dhaqanto oo aakhiro ilaahay wuu igu dhaqmo wuu raaciyo wixii qur-aanku farayey ayuu yeelay buu odhan doonaa waana kuu markhaati furi doonaa waana kuu shafeeco qaadi doonaa siduu nebigu calayhi salaatu wasalaam sheegayay marka kelmaddeed waxay ku kooban tahay dee idinku waxaa tihiin dadkii u xidhxidhay inay ilaahay kitaabkiisa bartaan dadkii u xidhxidhay ee nolosha ku talagalay inay ka wajahaan halkaa ah ilaahay kitaabkiisa inay bartaan waa halkii ugu macaanayd waa halkii uu nebi maxamed ka hayay calayhi salaatu wasalaam waa halkuu abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo rijaalkii iyagoo dunida joogay janno loogu bushaareeyey ka hayeen waa halkay ka hayeen dadkii dunida tan taariikhdeeda bedelay jid laga gaabiyo markaa maaha iyo jid laga seexdo
waxay u baahan tihiin habeen iyo maalin bayna u soo jeedaan waqtigiina inta ugu badan le inaad gelisaan hadday tahay sidaa laabta ugu qaban lahaydeen waayo xifdigiisu hadduu fududaado istidlaalkiisa fududaanaya inaad qur-aanka oo dhan suura ka haysato ama fududaanaysa suuradda oo dhan inaad garato mujmalulmacna waxay ka hadlayso oo dhan aada si kooban u garato ama fududaanaysa xifdiga kani wuxuu sahlayaa fahamkii iyo tasawurkii guud ee laga qaadanaya qur-aanka dee qolyahan dambena waxaabay sheegaan dadku maskaxdu ma kala weyna bay yidhahdaan maskaxdu xawaaley waxay yidhahdaan 1 kiilo ilaa 200-300 oo garaam ayaa culayskeeda yahay waxay yidhahdaan iyagu nimankii ay buunbuunin jireen Einstein bay qaleen oo markaasay yidhahdeen ninkani jiiniskiisu qayba caadi buu ahaye balaaneegna hadda madaxiisa wixii ku jiray intuu leekaa isagaaba garaamo ka yaraa bay yidhahdeen dadka caadiga markaa muu ahayn maskax buuran say u kala madax weynahay uma kala caqli badnin laakiin waxay yidhaahdaan connectionisku siday u kala badan yihiin buu dakaaga dadka iyo fahamkiisu u kala bataa yani waxaa laga yaabaa 1 trilyan ama 100 trilyan intaasoo trilyan oo unugye inay madaxaaga ku jiraan laakiin connectioniska ka dhexeeya intuu leegyahay waxay yidhahdaan dadka qur-aanka xifdiya iyagu qur-aanba may baadhin markii hore waxay baadheen taxi driverska London blackcard bahal yaroo la yidhahdo London dhowr sannadood ay habraha London degan wadooyinkay degan yihiin oo dhan magacyadooda ay qaybaan 2 sano 3 sano ay qaadataa inta magacyada la qaybayo streetska waxay baadheen MRI-ga markii la saaray kuwan xifdiyey wadooyinka London connectioniskooda madaxa ku jira inuu ka badan yahay dad badan oo kale memorizationkooda markaa inuu ka fiican yahay te qofka ilaahay kitaabkiisa xifdiyey maxaad u malaynaysaa qofka ilaahay kitaabkiisa xifdiyey idan xifdigu maskaxdana weydiin ballaarin garaadkana weydiin korin qur-aanka barashadiisu si dhaba u barataana dee wuxuu idinka dhigi doonaa xidigaha dunida laakiin waa haddaydan caajisin ama shaydaan idin odhan war kafaaya waxoogaa waad baratay ee magaalada iska galaanka o dhan ama iminka waxaad gaadhay waqtigii sayniska la baran lahaa ama meel kale loo ordi lahay qur-aanka xifdida iyo meel kale u carar haddaan shaydaanku odhan waxaad u baahan tahay inaad qur-aankaasi xooggan u barato waxa kalena waad baran kartaa wax derbi ku goobayay ma jiro laakiin macnaheedu maaha intaad qur-aanka tagta inaad wax kale u cararto adoo kalna sitoo barashadiisa wada ayaad waxaad kalee rabtana ku lamaanayn kartaa markaasaad noqon kartaa aadanihii dunidana hogaamin lahaa aakhirana meel fiican ka soo bixi lahaa صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين